ماريا جود التلفزيون قرنك سومالان مدن خضر علي قاس وويليام مدحا واحدة فرسمة تي في قرنك حسن شغل أو علي أيها ما أنت سو قاري مقالة قبلة حرنت قبل كقبلة halkaas oo ay kulamo ballaaran maanta kula yeesheen hawlwadeenada ka hawlgalay telefishinka qaranka magaalada Gabiley iyo waliba maamulka gobolka Gabiley iyo maamulka degmada waxaana ugu horeyn kulan ballaaran oo maanta lagu qabtay hotel askari ee magaalada Gabiley wareenba ka hadlay barasaabka gobolka Gabiley Axmed Cali Nuur ugu horeynba mahadnaq ballaaran oo soo jeediyay Maria guud telefishinka qaranka Soomaaliland intuu xilka ay guuli ballaarna ay ku talaabsaday isla dhinaca wararka isla markaasina waxa kale uu ka hadlay barasaabka gobolka Gabiley baahiyaha hawlaha qabad ee wakiilada telefishinka qaranka ee gobolka Gabiley ka qabtaan soo dhaweynayno Maria telefishinka qaranka Khadar Cali Gaas run ahaantii waxaan uga mahad celinaynaa telefishinka qaranka hawsha qaranka ay u hayaan marka runtii telefishinka qaranka ee aad madaxda ka tahay wuxuu ka mid yahay laf dhabarka ummadda oo ah meesha lagu kala qaato wax qabad iyo wax qabad la'aanba iyadoo xaqiiqada waliba loo sameeyay aanu idinka mahad celinayno barnaamijyada aad u sameeyeen dadka ee ku wax qaataan ama madaxda aad ku wareysataan iyadoo qof kastaba uu fikradiisa halka ka dhiibto oo qofka dhaliil loo soo jeedinayna telefishinka qaranka looga soo jeedinayo qofka lagu amaanayana horta halka looga soo jeediyo runtii waxaan la Khadar Cali Gaas aad baad u mahadsantahay intii aad xilka haysay xogayaha fulinta dawladda oo Cabdiraxmaan Nuur Abubakar isna sidoo kale halkaas ka hadlay ayaa isaguna Xuseen guud ahaanba ka maamulahan ay soo dhaweynayaan Maria telefishinka qaranka Soomaaliland Khadar Cali Gaas iyo waliba mas'uuliyiinta kale maanta soo gaaray xarunta gobolka Gabiley waxaanu tilmaamay in TV qaranku yahay tiraxaadka bulshada reer Soomaaliland taasina ay u soo dhaweynayaan isagoo Xuseen guud ahaanba ay saxaafadda ka howlgasho gobolka Gabiley ay waajibaad ka saaraan hawlaha horumareed ahna degmadii magaalada madaxda Hargeysa ugu xigtay inaad booqashadaadii ugu horeysay aad ku soo baxdo Gabiley ku timaado aad iyo aad baan kugu soo dhaweynaynaa aad iyo aadna kugu mahadnaqaynaa inta kadib TV-ga qaranku Gabiley si ballaaran ayuu hawlgalaa bahda saxaafadda ee Gabiley joogta way isku duuban yihiin waa meel kaliya وبه كلية سكاكا مقطعات قبل نركز سمانتا إنه بعد الصحافة ورياشي قبل يشوقي إنه يوسف دوبان ما تحركن أود يشوقان وكسر دوينيان ماريا تلفزيون قرنك مدن خضر علي قاس واسمع الكاسيكا الرياضيات المامي أهميتها ما أنت ويماتين يوجدوا يوصلون تاسو كنت المامي جودها بايتونيان حقيقية حقوق القشرة كشفتا هالورينا ذكاء وكلا تلفزيون قرنك قبل كقبله isagoo Xuseen guud ahaan bay gutaan waajibaadka ugu fiican ka maamulahaana uga mahadnaqayaan sida ay u soo dhaweeyeen isagoo Maria telefishinka qaranka Soomaaliland mudane Khadar Cali Gaas oo ballan qaaday guud ahaan ba hawlaha wax qabad ay u baahan yihiin hawlwadeenada telefishinka qaranka ee ka howlgala gobolka Gabiley ay sida ugu dhaqsaha badan la wixii kiraamkooda ka qaban doonaan aad baan ugu faraxsanahay in meeshii horeyseen booqdo ama xafiiskii u horeeyeen booqashada ku tago ونقطة كحفيز كجبلي التلفزيون كقرنك حفيز كان هؤلاء بدن بوقبتها وحكم دي حفيزية هالبولها أو التلفزيون كقرنك وأنا أقول باهي بدن بيشرتها حفيز كانوا كلية ما هي باهي التلفزيون كو رنتي ميل والبوي كشرتها لكن وحن بلن قاعدين إن شاء الله تعالى إن لقب حوض والتلفزيون كوحا أي دولة وجود تلاقش بتشت كدبلوج قليل لقول تيجيو تمرتيس يتيجي سنة كرلو قاعدو waxaa ka hadlay wakiilka telefishinka qaranka gobolka Gabiley oo tilmaamay ahmiyadda ay leedahay shaqada TV qaranka isagoo Maria ugu mahadnaqay kulankan maanta ku soo booqday xafiiska telefishinka qaranka ee gobolka Gabiley iyadoo hawlwadeenada kale ee ka socday TV qaranka gabagabadiina Maria telefishinka qaranka Soomaaliland mudane Khadar Cali Gaas waxa uu kormeer ku tagay xafiisyada TV qaranka ku leeyahay magaalada Gabiley